السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتنا والسلام يا dadka igu xidhan sharafta leh maanta waxay la joogaa nin mas'uul ah oo marti noogu ah marka intaan ka hor dhicin isaga ayaa faahfaahin wuxuu qofku yahay magaciisa saddexan title-kiisa noo sharxi doona ku soo dhawaal guuleed channel-keena ku soo dhawaal bismillaah guuleed saaxiib wad mahadsan tahay sida karaamada iyo sharafta leh aad noo soo dhaweysay magacaygu waa guuleed maxamed daahir guuleed suldaana waa la yaqaanaa waxaan maanta aanu magaalada goota aanu ku booqannay dhalinyarta Soomaaliyeed ee magaalada degan annagoo u wadna bushaaradaas oo ah jaaliyad Soomaalidu ay leedahay oo aanu soo saarnay bishii 6aad 2022 adoo bishii hore taas oo aanu dawladda adigu muddo badan aanu istaba soconay nagu qaadatay muddo 2 sano kadib alxamdulillah ilaahay noo soo dhameeyay maanta waxaan ugu bushaareynaa adoo ummadda Soomaalida ee wadankan degan ama gobolkan degan gaar ahaan gobolka Turingan inay leeyihiin maanta jaaliyadaas oo metelaysa danaha dadka Soomaalida meel kasta ay joogaanba okay ma sha Allah waa war aad looga farxo runtii waxa jira dad badan oo aad ugu dhibaataysan gobolka oo runtii cabashadooda qof ay u gudbiyaan la saad noo sheegtay jaaliyadii inay noqoto official warqadeedu u soo baxeen balwal wax yar nooga warantaa systemka jaaliyada xubnaha gudida intay ka kooban tahay si u shaqeyn doonto bal shacabka Soomaaliyeed information ka si bismillaah jaaliyada horta marka hore waxay ka kooban tahay 7 xubnood 7 xubnood oo markii hore dhalinyar isxilqaantay iyagu laftigoodu kuwaas oo adigu dhinac kasta ka eegay danaha Soomaalida gobolkan degan waxaanu degannahay gobolkan imika muddo 8 sano taas oo dhacday inaanu wax jaaliyada aanay Soomaalidu lahayn dhibaatooyin badan aanu waxa weeyaan meeshan aan kala kulannay kuwaas oo ay ka mid tahay midtaanba maanta ummadeena xanuunsanaysay oo waxa weeyaan cid ka faalad qaada aanay jirin dadkii wadanka ku geeriyooday oo waxa weeyaan aanu jaaliyada kale codsi waxa weeyaan aanu ka dalbanay adigu umuuman waxay metelaysaa danaha dadka Soomaalida ee wadankan degan magaaladan degan gobolkan Turingan kuwaas oo aanu metelayso danahooga guud iyo kuwa gaar ahaaneedba cidii dhibaataysan ee ku dhibaataysan gobolkan Turingan waxaanu u sheegaynaa oo bushaaradan maanta aanu uga dhigaynaa in waxa weeyaan ay leeyihiin meel ummadii waxa weeyaan ay dhibaatadoodii ay u sheegan karaan kuwaas oo metelaysa waxa weeyaan wadanka aad magaaladan dadkii ku nool ama gobolkan ku nool wala su'aasha dan kugu soo celiyo waxa nooga warantaa xubnaha ka tirsan jaaliyada ma dad aqoon leba oo aqoontooda ku yimi mise waa dad sida jaaliyadaha kale ka jira dad aanu yaani wixii lagu keenay oo runtii jaaliyada badan baa jira feel garoobay sabab u tahay dadkii gudida ka ahaa aan aqoon lahayn bal marka hore guuleedo adiga laftirkaaga adigoo nooga waramaya xagga background-ka aqoontaada iyo xubnaha kaga jira jaaliyada gudiga aqoontooda heerka gaarsiisan tahay marka aynu joogno halkan Jarmalka bal waa course information naga yarsi okay dadkuna si u ogaadaan quality-ga ay jaaliyadan ay leedahay yaani wax qabadka ay sameyn karto maxay qof aan walaal isagu liftirkiisa aan aqoon lahayn on maanta shahaado luqadaysan wax kale shahaadadii abshkuus kale iska daa ummadna waxba uma qaban karo ma garanaysaa marka bal wax yar walaal waxaad course nooga siisaa aqoonta inta gaarsan tahay walaal guuleed aad iyo aad baad mahadsan tahay su'aashaasi waxa weeyaan su'aal horta aad iyo aad u qiimo badan dadka marka loo eego aqoontooda horta waa dhalinyaro intooda badan marka loo eego aqoonta Jarmalka leh adigu dhowr dhalinyar baa matalan hadaan ka soo qaado aniga title-kayga oo kala hadaan sheego waxa weeyaan Jarmalka waxaan joogaa imika 8 bilood adigu 8 sano jooga 8 sano ee aan joogo waxyaalahan waxa weeyaan Jarmalka aan ka bartay waxa kamid ah in luqadii halkii ugu dambeysay ee qaxoontiga lagu tala galay aan gaaray dhameeyay oo la yiraahdo science kadib waxaan bartay course kaliya tama qualification Ausbildung kaas oo la yiraahdo Sprache und Integrationsmittler adigu waa turjumaan iyo isdhexgalka bulshada iyo imika oo aan wado Ausbildung kii labaad kaas oo ah Immobilien Kaufmann adigu wuxuu ku taqasusay qoliyahan guryaha iyo waxaas hadii aan soo qaaday imika matalan gudoomiye ku-xigeenkayga oo kale ama gudoomiye ku-xigeenka jaaliyada Xamsa la yiraahdaa Xamsa waxa weeyaan isaguna wuxuu marayaa Ausbildung-kii labaad adigu waa dhalinyaro aqoontii Jarmalka iyo aqoontii guud bal leh kole tole dhalinyarta
cid weji lagu keenay ma jirto cid wax kale lagu keenay ma jirto aqoontooda iyo horumarka waddanka ay ka sameeyeen ayaa lagu soo doortay maasha allah marka waxay taas jawaab tahay in qof kaste oo ka dhibaataysan luqadda dadka waxaa jira tusaale ahaan oo kale su-aasha aan ku weydiiyo waxay tahay faamiliyo badan ayaa jira oo ciyaalkooda iskuullada walaal u tagaan faamiliyadaas waxay u baahan nakhilfay u baahan yihiin marka jaaliyada badana waxay ku fashilmaan in ilmihii iskuulkii wixii loogu soo dhigay aanay yacni laftirkooda aanay ilmihii xisaabtii ka caawin karin marka taas waxay ka dhigan tahay jaaliyadiinu quality-geedu yani waxay gaarsiisan tahay xataa inaad nakhilfa aad samayn kartaan ubadka iskuulka kuwa hadda bilaabaya kuwa u socda heerarkooda kala duwan guruun shuule waxay doonaan ha noqdaan okay maasha allah waxaan haddaan halkaa iminkaan ku sii yaradkayo waxaan rabaa inaan sheego barnaamijka annagu jaaliyadda waxyaalaha koowaad ee daruuriga ah ee aan ugu talagalna waxaa ka mid ah iminka matalanba arrinka nakhilfa waayo waxaan rabnaa in insha allahu tacaala sida de waxa weeyaan aanu ka wada hadalnay anagii dhalinyarta kaleba inaanu samayno dhowr dhalinyar oo iyagu waxa weeyaan aqoonteeda leh insha allahu tacaala haddii aanu doonno insha allah aanu mustaqbalka dambena aanu hiigsanayno inaanu samayno inaanu u yeedhno adugu dad jarmala oo iyaga laftigoogii nakhilfaha nagu caawin kara ama ka caawin kara dadkii annaguna aqoonteedii leenahay maadooyinka tusaale idinku aad aqoonoo kale qof nakhilfa u yimaada oo idinku jeebkiina aad ka bixisaan ha maasha allah su-aasha ugu dambeysa waan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay jaaliyaddu waa jaaliyad soomaali oo dhan u dhan tahay oonu qof qabiil iyo waxba toona lagu soo xulan soo maha walaal waxa weeyaan jaaliyadani waxa weeyaan jaaliyad ay u dhan tahay ummadda Soomaaliyeed ee gobolka degan iyadoo oo aan loo eegin qabiilkiisa cid u yahay ee loo eegay waxtarka ummadda u qabanayo aad baad maasantay fiidiyowga halkaas rabnaa inaan kusoo gabagabeeyo ma jira baaq ugu dambeeya guulooda aad ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto jarmal dal iyo dibadda aad u dirayso waxa weeyaan baaqayga Soomaalida aan u dirayo waxa weeye war walaalayaal waxa weeye aan u dirayo ummadda Soomaalida ah waxaan leeyahay war hal isku duubnaado walna waxaan u sheegayaa oo baaqan u sii dirayaa dadka Soomaalida ee gobolkan aanu degannahay ee gobolka Turingan waxaan leenahay walaalayaal Soomaali midaysan ayaa noo ballan okay wixii informationana WhatsApp numberka halkan baan ku soo qori doonaa gudoomiyaha guulada aad baad ma asantay mar labaad mar saddexaad walaal aad baad ma asantay